aad baa mahadsan tahay agaasime axmed laqaaye sidoo kalena barnaamijka bandhiga laqaayena waa ku dhowahay magacaygu waa cawl maxamed cabdi waxaan ahay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusaj waxaan mihnadan saxaafadda aan ku soo biiray muddo hadda laga joogo 15 sano sanadkii 2004 aniga ahaan taariikhdeeda haddaan ka warramo waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho sanadka markaa 1987 burburkii kadib waxaan soo wareegay magaalada Garowe waxbarashadayda dugsiga Quraanka Kariimka qowlka Eebe waxaan ku dhamaystay Garowe dugsigayga hoose iyo kii dhexe waxaan ku dhamaystay isla Garowe kadib waxaan u wareegay Muqdisho waxaan ku dhamaystay secondarygaygii dugsiga sare sanadkii 2004 bilowgeedii baan dhamaystay kadib baan waxaan u soo noqday dhinaca iyo deegaanada Puntland oo markaa aan kooraska saxaafadda bilaabayo oo aan bahda warbaahinta ku soo biiray waxaan nasiib u yeeshay sanadkii 2004 bartamihiisii arday lagu tababaray qaybta barashada saxaafadda idaacadda radio Galkaayo oo markii dambe anigu aan agaasimo ka noqday ma aysan noqon idaacaddaas tii aan isla markii ka howlgalay aan saxaafadda markaan bartay laakiin markaas waxaan ku biiray radio Daljir oo cusba Allah naxariisto waxa ugu soo dhaweeyay agaasimahaygii hore Aadan Nur Maxamed oo anagu muddo sanad wada shaqeynay dhintay kadib waxaan u wareegay magaalada Baydhabo sanad kadib 2006 xilligaas oo raadiyay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ee furtay Radio Bay aan ka howlgalay Baydhabo laga furay xilligaas oo shaqo aad u adag aniga koox wariyaal oo halkaas lagu qaatay inay raadiyihii shaqaale ka noqdaan shaqo adag aan halkaa ka galay oo halgankii dib u xoreynta dalka kooxaha maxaakiimta iyo dagaalada la galay xilliyadaas xilliyo adag ay tahay oo qaarkan reporter qaarna ay idaacadda markaa ku sugnaayeen sanadkii 2009 waxaan dib ugu soo noqday Galkacyo xilligaas waxaan tifaftira ka noqday idaacaddii markii hore aan ku tababartay radio Galkacyo sidoo kale intii aan joogay idaacaddaas waxaan la shaqeyn jiray baraha page internetka qaarkood website Soomaaliya uga caansan qaar waxaan ka noqday qoraa qaar waxaan ka ahaa tifaftira sidoo kale 2011 waxaan aasaasay wargeys la yiraahdo Raadraaca oo ka soo bixi jiray magaalada Galkacyo muddo kadibna hal sano wargeyska shaqeynaya wasiirka xilliga joogay warfaafinta Puntland Axmed Cali Askar oo suxufi rugcada Soomaaliyeed ahaana ayaa ii magacaabay inaan noqdo agaasimaha radio Galkacyo sanadkii 2012 xilligaas oo idaacadda aan iyadoo xoogaa iska tabar daran aan soo kiciyay agaasimana aan ka ahaa muddo soo gaadhay 2019 sanadkan soo dhaafnay bishii Agoosto xilligaas oo la doortay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed mihnadan saxaafadda intii aan ku guda jiray waxaan tababaro u aaday dalalka dibadda qaarkood iyo sidoo kale aqoon-is-weydaarsi fara badan oo gudaha dalka ka dhacay shirar caalami ah waxaa ugu muhiimsanaa kooraskii ama tababarkii aan ku qaatay jaamacadda Nairobi University oo ahaa TOT in anagoo 9 wariyaal Soomaaliya laga soo xulay naloo tababaray muddo 2 bilood iyo bara inay noqono dad iyagu macallimiin noqdo oo mihnadan dad ku tababara nasiib wanaag muddadii markaan dhamaysanay aqoontii dib baan u laabanay aniga inaan saaxiibanahay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Puntland caansana waxaana lagu qoray magaalada Garowe jaamacadda BSU baa waxa lagu xareeyay arday fara badan oo 25 gaaraysa difacadaas baan tababarnay muddo 2 bilood ah tababarkii intii aan qaadanay in la eg waqti la eg baan iyagana siinay qaarkood hadda shaqooyinka heer sare oo ka gaaray magac iyo maamusna sameeyay Soomaaliya qaybaheeda kala duwan gobolada ka howlgalayaan tababarada aan sidoo kale heer caalami ah oo ka qayb galay waxaa ka mid ahaa mid aan u tagay Tunisia tababar iyo shirweyne iswatay ururka suxufiyiinta adduunka IFJ Congress-kooda ka mid ahaa Kigali oo aan dhowr mar tababaro u tagay
Ethiopia Addis Ababa dhowr tababaro tagay Nairobi iyo Uganda intaas ahayn shirarka caalamiga ah ee tababarada aqoon-is-weydaarsiga madaxda aan ku qaatay in ka badanna gudaha dalka ayaan ku qaatay mihnadan marka inta aan ku guda jiray waayahayga shaqo kaliya ma ahayn jariidado iyo wargeys iyo website iyo idaacad kaliya sidoo kale waxaan la soo shaqeeyay ururada saxaafadda Soomaaliyeed ururka suxufiyiinta Puntland ee MAP baa ka mid ahaa muddo 3 sano oo guddiga fulinta ahaa oo madaxa mashaariicda qorsheynta ahaa sidoo kale ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeedna member baan ka ahaa xubin markii dambe waxaan noqday xogeyaha abaabulka ururka ugu dambeynna waxaan noqday gudoomiyaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed oo aan hadda title-kaas hayo waayahaygii marka haddii aan kasii sheekeeyo dabcan dhib iyo dheef waa lahaayeen intaan mihnadaas ku soo guda jirnay haddaan ka hormaro duruufo adag xilliyo lagu soo shaqayn jiray oo teknolojiyadu hadda aysan digital u guurin oo aanu ku soo shaqayn jirnay xaalado adag baa jira waxyaabaha khaladaadka dhici jira waxaa ka mid ahaa waxa lagu shaqaynaya kaasidheeg cajaladuhu ay gelayaan waxa warka lagaga qabanayaana waxa weeye telephone marka uu reporterku warka soo dirayo waa loo tiriyaa 1 2 3 marka aad tiraahdo bacajalka boos ka qaadaysa recording ku aha boos baa saarna boos ka qaadaysa warkii waa gelaya marka qaarado degdegsan waxa laga yaabaa inaad ku soo dhaweysid agaasim la qaayo oo goob ka hadlay inaad narration soo sameeysid marka play tiraadana dadka aad tiris 1 2 3 ay soo gasho waxyaabo la yaab kala hadda digitalka casriga waxa loo guuray ina computer waxa uu ku diyaarsan yihiin meesha cajalka aad gudihiisa qari lahayd kaas dhig ku qari lahayd inaad digitalka aad ay tahay Adobe Audition aad ka tiraahdo teknolojiyada loo guuray hadda waxyaabaha la faa'iido ka mid tahay waxa sidoo kale jiray caqabado iyo duruufo adag oo horey aan u jirin hadda soo biiray xilliyo waxa jirtay ammaanka meel walba aad mari kartay ka shaqayn kartay laakiin hadda ma jirto hadda dhibaatada ugu weyn ee jirto waxa weeye saaxiibo badan oo wada shaqayn jirnayna ku dhacday waxa ahayd in iyagoo aanan waxay galabsanaan garanayn in la dilay qaar la dhaawacay qaar arkeen waxa way dhib ka soo saaxiibadood ku sugan yihiin oo khatar u bareeray tahriibay qaar magaalooyinkii ay jeclaayeen oo ismeel ku doorsan lahaayeen banaan joogka ah dhibaatooyinkaasna waxay noqdeen mihnada kuwa ku soo kordhay cadaawad meel ka timaada garanayn kuwii hadda shaqeynaya gudaha dalka shaqeynayana ay wali la tacaalayaan oo ah kuwa ugu yar dhibka u kulmayaan la kulmayaan ay u yahay jirdil xarig aflagaado caburin iyo wixii la mid ah marka alxamdulillah rabbil aalamiin saastayna wali waa lagu shaqeynayaa dhalinyaradu waa ku dhiifoon tahay wayna ku sii dhiiranayaan waxa ilaaha mahadiisa in wali mihnadii niyad loo hayo lagu soo biirayo oo ilaa hadda garabka banaanada la soo buuxin doono insha Allah runtii wax badan oo khatar ah way ku jiraan oo intaan hadda soo shaqeynayay waxyaabaha ugu yar oo cabsi gelin ah waxay ahayd war markaas idaacaddii mas'uulka ka ahayd ama aad reporterka ka ahayd ama newscasterka ka ahayd oo war hadda ka baxay in isla markiiba teleefankaaga inta la soo garaaco jawaab celin laga siiyo lagu yiraahdo warka noocaas adaa ka jawaabay waxyaabaha la yaab kale bay noqotay maalmaha ka mid idaacaddan agaasimaha ka waxa ka dhacday qof warka ku qornaaba gudaha galay warkii buu galay marka warkii koox Soomaaliya ka mid ah kooxaha ka dagaalama baa warka leadka waxa ku jirta inay iyagu weerar sameeyeen laakiin awoodoodii la weeqay warka ad garanaysa idaacaddu waa gudaha iyo dibadda warka gudaha soo aan dhamaan waxaan fadhiyay xafiiska agaasinka telefoon baa soo dhacay waan qabtay waxa lagu yaadan tabar daran adaa ka jawaabay waxa wiil khayrka warka u dhiibay marka waxay ahayd cabsi gelin joogto ah waxa dheereyd ficilada tooska oo dhacay
idaacadda agaasimaha ka intaan agaasimaha ka ilaa iyo 3 mar weeraro bambaanooyin loo geystay waxaa ku dhaawacmay shaqaalihii qaarkood iyo tooftiri idaacadda kadibna waxaa noo sii dheereed fariimo badan oo hanjabaado ah shaqaale badan oo xataa xamili waayay amaan awgiis waxay doorbideen inay isaga tagaan shaqadii naftii iyo markay noqotay waana wax moogtaa qofka bini'aadamka ku kalafaya laftirkiisu inuu miisaan saaro waxaan khasaare iyo faa'iido wixii ka soo galay adhoodina uu faraha ka qaado in badan oo shaqaale ah kamid ahaa oo duruufahaas u tagay annaguna aan ku sii dhabar adeeg inaan shaqadaas sii wadno marka caqabadahaas waxay kamid ahaayeen kuwii dhinaca ammaanka oo ina soo wajahan والله نيو أديان إنكستو دي رجل وذا لاي رجل دمربا أي حاين ضد أنه شقة وذاقنا حيو أدي دم قنيين ومنا أوسن فرح جرينين دم شديس أما داوعس حدنا وسيك الحنون بناينو مركا قف أدش تغنان لدلنا ووحكلا runtii dadkan aad ku soo wada shaqeynay waxa kamid ahaa oo idaacadda gaalkacyo ka soo wada shaqeynay علي أحمد عبدي ومارس 2012 lagu dilay gaalkacyo farxaan james abdille oo saasoo kala gaalkacyo lagu dilay isla sanadka 2012 sanadka 2013 liibaan cabdullaahi faarax allah naxariista liibaan qaran isna gaalkacyo lagu dilay 2014 cabsaaq cali cabdi silfar oo isaguna gaalkacyo lagu dilay 2018 ugu dambeysay sanadka hor ahayd waxa lagu dilay wadan in la yiraahdo aan saaxiib ahayn waxa intaas u dheeraa gabaraan soo shaqeyn jirnay oo asxaab meel ku wada shaqeysa oo meel ku soo wada shaqeysay aan ahayn xurriyash cabdiqaadir shaale oo iyadana inta la isku dayay in la dilo ilaahay badbaadiyay xag rabbi waa ka nooshahay laakiin shayaadiintu ugu tala galay inay dilaan iyagu dhinacooda waxay ka qasdiyeen inay dilaan laakiin وإلهي بدبادية حبض الشنا بيكون فتن مدة قال كعيدا وعقواهيد وهيلي هو ولا تريو إلهي بنعيسى كنو شاهي وحده بالبد قبته بيكون شاه مركا صاحب بدن وعيدا يعرضها كبدن وصومالي اللي قلاي بيكمل أحايان ولي بس حق دراه لو قد لي يجو أن إسنجرنين وحلا هذا يبيين والله برتنامس runtii dee waad garanaysaa waxa laga shaqeynayo waa mihnad weyn waana saxaafad ama waa warbaahin qofku markuu wariye yahay waxyaabo badan oo taariikhda gelaya oo xog aruurina ba inta noloshiisa kulay waa qof u diyaarsan inuu xog u aruuriya wuxuun xoga soo gaareen aniga dhacdooyinka haddaan aad u farbadnaa haddaan 2 iyo 1 ka taabto waxaa kamid ah gabdhuhu saxaafadda waa iyagu ku soo biira rag iyo dumarba qofkan wuxuu saxaafadda u soo galaa waa hobby ama talent ama uu leeyahay jacayl uu qabo uu leeyahay miinadan qof danaynaya ay ka soo bixi kara gabar kamid ahayd gabdhaha ku nool magaalada gaalkacyo baa jeclaatay inay saxaafiyad noqoto tababar qaadatay muddo kadib imtixaan laga qaaday idaacaddii bay shaqaale ka noqotay maalmaha kamid ah baa marka waxay gashay ideh idaacadda la duubay ama xayeysiin gabadhu marka waxay ku jilaysay marwo inay tahay waxay leedahay erayada isticmaalaysa xaaj aabaheeda dhageystay wuxuu yidhi adeer marraba gabadhu inay sharmuutayga noqoto waxyaaba la yaab kale tiyo xaaj ku hays maba aysan gaarinaysa u tiraahda xaaj marka dalac noo raacdo adeerow gabadhii iyadoo tababaratay oo inta aqoona korsatay baad ku eegatay kamaana aada ilaalin heer bay ka gaadhay maanta hadday shaqeynayso maxaa ku jiro ma yiraahdo gabadha fataalnimo ma rabo marka waa nooca ay bulshada qaar ka aaminsan waxaa ka sii daraa ninkiis ila soo xiriiriyay niyo waxaa jira niman dhalay oo aan saxaafadda raba inaan ku soo daro runtii waxay noqotay arrin dee soo dhaweyn leh marka lagu yiraahdo qof baa wuxuu ku soo biirayaa mihnadii adoo laftirkaagu xoogaa wehel iyo jacayl baa dareemaysaa in maaragta
asxaab badan ay kula mihnada ay kugu soo biiri doonaan laakiin ninkaas wuxuu ii raaciyay ninkii oo maara waayay baloodii uu bartay waa saaqiday noloshu ka dhacay meelaan saxaafadda ahayn oo ninka iga celin karta ma jirto meesha ku madax qarsada ninka iga hay runtii waxay igu noqotay wax niyad jab iyo ama kaag in qof qarniga la joogo waayo aragnimo iyo aqoon ku filan haysta inuu heerka ka aaminsan yahay saxafiyiintii iyo mihnadii laftirkeeda dhacdooyinkii marka waxay labadaas ka mid ahaayeen iga yaabiyey intii aan ku guda jiray hawl maalmeedkayga dhinaca warbaahinta aad baa mahadsantahay laqaaya agaasime anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan waa muhiim inaan la hadlo suxufiyiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan guda iyo dibadda muhiimadda koowaad waxaanu siinaa horta adduunkii waxaa dahalakeeya cudur balaa oo saf mar noqdayo meel walba tegay marka suxufiyiinta Soomaaliyeed si taxadar leh inay uga waramaan iyadoo aysan jirin wax buunbuunin iyo ka badbadina wariyaha ka soo waramaya goobaha boominka ah ama lagu badan yahay isagoo laftirkiisa taxadar sameeyo afka xirto gloves ku shaqeeyo meelaha ku haboon ka shaqeeyo midda kale dalkeenu waa dal colaad iyo baaba iyo burbur ka soo baxaya waxa ugu qaalisan aadanuhu u haystaan waa nafta cadaawad badanna waa jirta ama noqoto kooxaha dawladda ka soo horjeeda ama ha noqoto ciidanka dawladda laftooda mar walba in wariyuhu ka taxadaro warka uu raadinayo haddii khatar ku jirto inuu naftiisa badbaadiyo inuu kororsado khibradaha ku saabsan ammaanka inuu mar walba nafta muhiimadda saaro mar walbana aynu ka shaqeyno sidii dalkeena aanu u sii horumarin lahayn oo gacan uga geysan lahayn amnigiisa iyo nabadgelyadiisa iyo kala dambeyntiisa intaasaan ugu baaqi lahaa suxufiyiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan Thank you.